بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الشكر لله، الملك لله يا ربي. ومد الصوماليد waxaan ku salaamay adduunka meesha uga nool yihiin iyo inta islaan ummadda nabi maxamed dhan sallallahu alayhi wasallam. salaanta islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaas kadib waxaan si gaar u salaamayaa walaashay dhibaatada la soo daristay. ilaahay dhibaatada dheefa ugu bedelo. faadumo waxaan kaloo si gaare oo naxariis ku dheehantaa u salaamaya gabadhayda dhib la-aanta aan dhalay. haba macaan intaan noolahay lagama yaabo inaan kaa haro. maalintaan dhinta laakiin waa kaa haraa. saa waxmaba qaban karin, markaas godaan galay ma garat. laakiin intaan noolahay wanaag ayaan ilaahay kaaga baryaa. ma kaa caajisaayo, nafteedana kaama hari karayso. sababtuna ay tahay in aan xumaantaada nacayo, wanaagaadana aan jeclaan. nafteedana marna aysan ogolaanayn gabartii adiga aad dhashay camal ah foolxumaha ku sugnaato adduunyada dusheeda, aakhirane cadaab ha mutaysato. marka intaan noolahay waa anada iyo baraamburka iyo ducada waan wadayaa biidnillaahi alkariim. haddiida hooyo aa usoo dhiibtana aadan u farxay. jimcihii hadda jimcihii ka horreeyey khudbadii salaadu jimca, khudbatu jimca, alla wuxuu igu ogyahay in quluubta ay igu baqday salaada gudaheeda. culayskii iigu weynaa oo qalbigayga saarnaane ay ahayd dhibaatada hooyo iyo carruurteeda kala haysatay. maalintaas jimcahan jimcihii ka horreeyey habeenkii sabdigu soo galayana markii aan daaray hooyada qaybteeda borogaraamaadkeeda kii ugu dambeeyey waxaan ka helay farxad. sidii ayaan qalbiga uga soo duceeyey. markay quluubtii baqday aan niyo ilaahay ka baryaan dhaa yaa rabbi, culays kaloo qalbigayga maanta saaran ma jiro oo iiga weyn da'yarta aan dhib la-aan dhalay, oo micnaha la nool iyada iyo wixii ka yaryaraayoo dhan, la nool gaala aan ku diin ahayn, la nool cunto aan cuntadoodii ahayn, waalidka dhalana ag joogaan oo ay ku nool yihiin nolol ciriiri leh, hurda la-aan iyo harsi la-aan. marka ilaahuw culayskaas fudayd adaa u bedeli karayaa rabbi. kadibna waxaa habeenkii inta ka arkay haddii aa hooyada usoo dhiibtay. wallaahi waxay ila mid ahayd anigoo qof aan aqoon naga dhexaynin, adreeskayga iyo adduunkayga meeshuu ka helna aan la garanayn, oo hadiyad dahabi iisoo dhiibay. mucjisa igu naqata. bini aadanka maanta jiro ama dumarku waxay aada u jecel yihiin dahabka. hadiyad yareedaa hooyo usoo dhiibtay waxay ila mid naqatay hadiyad ani adoo isgaranayn, sida haddeer anigu ku garanaynin xumaantaada ee ii dhibayso oon xanuunsanaayo camal, adigoo hadiya iigu soo dhiibtay adoo i garanayn oo dahabe. habaryartay soomaaliyeed alla dartiisaan ugu hadiyeeyey dahabkan. waxaan ku noolahay magaalada Sweden, magaceygana saana la yidhaahdaa. gabadhaan maxay igu jeclaatay hadiyada iigu soo dhiibtay? alla dartiis unbay kuu jeclaatay gabadhaan. sidaas camal
ayaa u farxay you know inta adduunka ku noolne gebigood waxaa la jeclaa wanaag alxamdulilah alshukrulah waa nicmo rabbi looga shukriyo habooy macaan waxaan rabaa inaan wax yar kaaga sheego waxyaalo badan oo adiga kugu soo wajahan laakiin aadan caqlina u lahayn aqoonna u lahayn da-adu markay yar tahay caqliguna waa la yarya cimriga aa ku jirto waan soo wada marnay waalidka waana waanin jireen bacdama markii meelahan la imaado dad badan ay isbedeleeno abusaan ku noolayn inkanaan ahayn inkanaa ahayn la yiri diin horta diintaada aanan ahayn ku dayashadeedu dulli unbaa laga dhaxlaa hooy wanaag lagama dhaxlo nolol raaxalaan ku noolayn iyo nicmo waalidkan waana waanin jireen da-deena markay yareyd wanaaggaan lagu waanin jiray shineemooyinkaan geli jirnay cayaaraha basketboolkaan fiirsan jirnay waa la bisan jirnay waalidka waa la nooleen waana la waanin jiray waana loo sabri jiray madax waa iska adagyaha da-da markay yar tahay hooy aynoo daat waa ogahay marka maanta aniga sidii la ii waanin jiray ayaan habaryaray baraha bulshada kaaga soo waanina waalidna xaqiisa ma la gudi karo hooyo iyo aabba labadaba mid xaqiisa la gudi karo malahan adduunya dusheeda ma fahanti waxaa waaye waxyaalo badan oo adiga maanta aan ku ifayn ayaan aniga ogahay hooyo barina haddii ilaahay ka raali noqdo guri waa geli doontaa guurna waa mari doontaa ubadne waa dhali doontaa haddii allah awoodda ka raali noqdo ma garata marka iga xer qaboobka ka riix marka waxaana jeclaani doontaa markaa wax dhash ada arki doontid oo fool aamartid hooyo resbakti gooni ah oo laba jibaaran ayay markaas gabadha u ogolaataa hooyaed markay hal da' dhasho kadib da-da markaa dhasho kadib raaliga ahaad hergab xun ay ahaay da-da markaa dhashid kadib oo calool ku qaado cunto afka u gelgelisid korisid ilaa oo kasoo caqliyeysto iskuulka ula carartid dugsiga ula carartid marna diinta ku tarbiyeysid marna wanaag ku tarbiyeysid nolosha isteeb waa jaranjarta hoosaa kasoo bilaabee sidaa u socotid heerka adiga maanta aad joogta ayay soo gaaraan ilmihii marka yulikeed waxaa jeceshaa cunug inuu ku resbti garay hooy oo ku maqlo adee marka haddaa waalidka hore usoo maqlin aa resbakta siinin oo ah hooy waalidkaa kusoo caasisa aa kusoo dhaga adeegtay wiilkaada sidii i ka daran kugu naqanaa ma fahanta marka waxaan rabaa labada dhinacba inaad nolosha ka badbaadid hal mar kaale inta isoo fadhiista gabar da-diinaan waaninoy hal mar saf iisoo gala kaale come here soo gal inta waa kana saddexdiinaan rabaa inaan soo wada geshin soo come here ku jirta xamdi haa waa kana gabdhahayga waa kuwaana waanada ayay igala qayb qaadanaya okay everybody waxaan rabaa gabadha inuu waaniy waa gabar yaroo idinka da-diina ah hooye iyada kala tageen isku xanaaqeen soo inaa waanisiin inay gabadha iskala bisato maxaan ku dhaha waqtigeeda ayay joogtaa farxadeeda ay qaadato laakiin hooye ay u naqato mid adeecda oo baari u ah hay goohe qabso english ku dhah yes everybody qaba kan ha u sheeg micnaa conceal waana waay ma garat waxaan ku waaninaa dhehaysa I don't know what to say. I'm thinking. goohe Hey, listen, your mama. That's it. That's all I gotta say. mama soo gabagabayna adi soo dheeray waxaan ku waaninaa dheh inaa hooyo maqashid please
hooyo hooyadaa muhurdayso dhegeyso hadday walaa gabar ka maqan hooyo tahay hadda bay 7 naqon. caruur ayaa sabab u noqotay in adigi dartaa loo wada qaatay 6 kaa yararayd marka waxaan kaa codsanaynaa in micnaha aa hooyo respect garaysid aa u naxariisatid dibna aa usoo laabatid noloshaadan aa badbaadistan hooyan aa badbaadisid hay go ahead english ku dheh Listen to your mom. She is right. magacaadu sheeg Oh, Fatima. hay Amina Watana. hay Hamdi Watana. Deep everybody magacayga waa sahan bilis waxaan ka codsanayaa inaa usoo laabatid adi qof kasta laga rabaa Go ahead. magacayga waa aamina hooyadaa u salaabo Magacayga- Soomaali ku dheh. magacayga waa xamdi hamdi soomaali ingiriis Go aan ahead. ku dheh Socohayaa. ana ingiriis ma aqaan laab albaabka iftiinkiis qaladu keenoyaan dhehe adigi qof waa kasta dhehe magacayga waa saan magacayga waa saan okay bilis waxaan ka codsanaa inaa bilis hooyo waxaa ka codsanaa inaa hooyo usoo laabatid usoo laabatid u naxariisatid u naxariisatid qalbiga u furtid qalbiga u furtid ilmaha ka dhan gurugsa ilmaha laga rogdare That's why. macaan thank you so much ayo bye insha allah hooy macaan waa kaas gabdhahaygana waanada waa kuu soo direen farxadda waa ila wadaageen adigana saas i kasii wanaagsan aan kaa rajayn doonaa haddii ilaahay karaal noqdo hooy inaad tiiraayada ka qaadid aa farxadda la wadaagtid ayaan ilaahay ka baryaa saacad kasto biidni illaahi alkariim hooy uroon aada iyo aadaan kuu soo dhaweynaa insha allah make to change samee inaad wax bedasho insha allah ilwaadan kuula baxaani ina faadumo insha allah waxaan kaa rajeynaynaa maqal farxad leh biidni illaahi alkariim ilaahay hanoo aqbalo kaama daalaya aniga ilaa reerka a kusoo laabato hooyo aabbana aa maslaxayso kama daalaya inaan waano iyo wanaan kuu soo diro inaan baraambur kuu soo diro inaan alla kuu baryo saacad kasto ayaan diyaar u ahay hooyo uroon ilaahay dartiis ma garad marka sidaasaan isku ognahay insha allah waanada gabdhahaygana waa kula soo wadaagay assalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaat codkaygana cod fiican maan hergabaas xun ii haayo abaayaday faaduman insha allah iyo xaajigeeda waxaan idin rajeynaa nolol farxad leh biidni illaahi alkariim ilmihiina idinkoo wada joogtiin oo ilaahay xaq idinkugu soo celiyey gaaladan ka guul heshaan ayaan rabbi idin weydiiyey assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu